Okay, assalamu alaikum everybody. doodeennani caawa waxay u dhaxaysaa labadeenan aqoon-yahan ee martida ah haddaan macluumaad yar idinka siiyo labada qof ee doodayana waxay kala yihiin halkaa fog waxaa fadhiya cimraan xuseen oo ah macallin sidoo kale ku takhasusay afkaaraha islaamka sidoo kale waxaa ku xiga John Richard oo isagu ahaan jiray macallin sayniseed dabcan laakiin hadda howlgab noqday sidoo kalena ah qoraa sidoo kale kuna jira ururka isbahaysiga mulxidiinta dooduna qaabkay u bilaami doontaa waxa weeye marka hore qof kastaaba waxa la siin doona 20 daqiiqo oo qof walbaaba uu soo bandhigi doono arinta uu ku doodayo mawduuca laga doodayana ciwaankiisu waxa weeye noloshu miyay xumaanaysaa ilaahay la'aantii hadalkana waxa ka horeyn doona Cimraan Xuseen marka aan soo dhaweyno Cimraan Xuseen Okay, Bismillah and Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Which basically means may the peace and blessings of God be upon all of you. Now, nabadi korkiina ha ahaato mawduuca aynu maanta ka doodaynaa waxa weeye noloshuma waxay noqonaysaa mid aan habboonayn ilaahay la'aantii su-aashanina dabcan waa su-aal muhiima in la isweydiiyo su-aashana inta aanan ka jawaabin haddii marka hore aan hal tallaabo dib u qaadno aynu ka soo qaadno tusaale ahaan qof aan ilaahay rumaysnayn jiritaankiisa aan yaqiinsanayn ilaahay beeniyey qofkaasoo markaa ku andacoonaya inuu yahay markaa mulxid inuu yahay ku andacoonaya ama uu qofku yahay qof naturalisti ahoo macnaha qof ku andacoonaya uun adduunyadani inay iska jirto uun xagga dambena waan ka qeexi doonaa markaan leeyahay atheist iyo markaan naturalist leeyahay waan kala saari doonaaye haddaba marka aan leeyahay marka aad tahay qof mulxid markaan leeyahay waxaan ka wadaa qof yidhi ilaahay ma jiro qofaan inuu ilaah jiro ama ilaah adduunyadan abuuray inuu jiro qof markaa diidan ayaan ka hadlayaaye isla saasoo kale markaan leeyahay qof naturalistia markaan leeyahayna dabcan waxaan ka wadaa qof yaqiinsan oo aaminsan uun keliya waxa jira waa waxaan la arkaya adduunyada yaalla uun intaa wax ka baxsan oo jira ma jiro qof odhanaya weeye taasoo haddana marka dhinac kale laga eego dabcan ka dhigan dhammaan mulxidiintu inay wada naturalist yihiin sida tusaale ahaan aabbihii markaa mulxidiintan casrigan Richard Dawkins sidoo markaa isaguba uu buuggiisa ku sheegay oo uu yidhi dabcan dhammaan mulxidiintu waa wada naturalist uun isla saasoo kale John oo caawa doodeena ka qayb qaadanaya inuu isaguna markaa qolyaha ku jiro iyo inuu markaa isagu kuwa ka duwan yahayna markuu hadlaya ayaynu ogaan doonaaye sidaa darteed haddaad tahay haddaba qofka aan soo sheegnay ee mulxidka ah haddii aad tahay bal waxaan isweydiinaynaa qofka mulxidka ah ee sidaa ah arrintaa uu aaminay ee uu yaqiinsaday ee uu markaa uu sidaa uu aaminay qofka noocaasa ficiladiisa maxaa ka dhalanaya ama qofka hadduu sidaa noqdo maxaa arrintaa ka dhalanaya aynu marka hore isweydiino aniguna qodobkan ku doodaya caawa waxa weeye in noloshu marka dhinac walba ka eegto inay noqonayso midaan habboonayn ilaahay la'aantii arrintaasaan u caddeeyana marka koowaad horta waxaan jeclan lahaa inaan soo qaato arrimaha haddaan bani aadam nahay innaga ina dhiba ee aynu had iyo jeer aynu danayno gaar ahaan weliba su'aalaha qotada dheer ee qof kasta oo bani aadam ah oo caqli leh uu isweydiiyo kaasoo ah maxaan halkan u joogaa waa maxay hadafka iyo ujeeddada aan noloshaydan aan ka leeyahay sidoo kale noloshan aan noolahay hadafkeedu waa maxay sidaa darteed dabcan su-aashan gaar ahaan su-aasha khusaysa hadafka nolosha waa su-aal ilaa iyo bani aadamku weligii allihii uu soo weydiinayay gaar ahaan dadkan fikira filosofarada intaasoo jeer ay isku dayeen inay ka jawaabaan waa maxay hadafka noloshu waana dabcan su-aal qoto dheer oo ilaa maanta bani aadamka iyo dadku ay isweydiiyaan oo dadku waxay isweydiiyaan maxaan adduunyada u joogaa maxaan halkan u joogaa maxaan halkan ka dhex qabanayaa waa maxay hadafka iyo ujeeddada aan adduunyadan u imid dabcan su'aalaha noocana su'aalahaasoo inagu dhex abuuran qof kasta oo bani aadamihii uu isweydiinayo haddaan jawaabta aan loo sheegin waa su'aalo uu jawaabtooda inuu helo uu u baahan yahay nasiib darrase su'aalaha noocaasa mulxidiintu jawaab uma hayaan keliyana waxay kuugu jawaabayaan noloshaadani wax hadafa iyo wax ujeeddo ah noloshaadu ma laha ayay ku odhanayaan dabcan markay ku leeyihiin noloshaadu hadaf ma laha markay ku leeyihiinna waxay ku raacinayaan oo marka ay odhanayaan uun keliya noloshani waxay ka kooban tahay uun waa atamyo iyo sidoo kale malakuyulo intaasoo qarne iyo intaasoo sano markaa iyo intaas iyo malaayiin sano noolaa uun adduunyaduna waa sidaasun wax kale iyo hadaf kale oo laga leeyahay adduunyadan ma jirto dhammaan nolosha sidan u weyn ee adduunyada ka jirtaana siday u dhan tahay waxay ku timid uun si markaa qariiba unbay hal mar jug iska tidhi oo nolosha sidan u dhammayskatiran ee sidan u habaysan unbaa sidaa iskaga abuurantay waxaanoo dhanna cid samaysa iyo cid ka dambaysa ma jirtee si random ah unbay hal mar isaga wada yimaadeen
sidaa darteed dabcan halkaa waxay nooga caddaanaysaa qofka hadduu iska aamino uun in noloshani ay iska samaysantay uun hadduu iska aamino halkaa waxaa kaaga baxaysaa oo ay ka dhigan tahay in noloshani wax hadafa aysan lahayn dabcan qofkuna hadduu garan waayo hadafkiisa iyo hadafka uu noloshan u joogo iyo ujeeddada iyo sababta adduunyada loo keenay hadduu garan waayo oo isdhaho noloshan adduunyadu wax hadafa qofka ma lahe haddii isdhaho dabcan qofka walaac badan ayaa ku abuurmanaya walaac fara badanna qofku wuu dareemayaa sidaa markaan idin leeyahayna dabcan hadda idinku markaad aniga aragtaan waxaad ii malaynaysaan inaan ahaan jiray xataa weligeyba qof muslima oo wanaagsan oo weligaa lihii diinta ku dhaqmi jiray inaan ahay baad ii qaadanaysaan laakiin aniga lafteedu xataa dabcan su-aalaha hadda kahor waa isweydiin jiray su-aalaha qofka aan jawaab u haynina walaaca uu dareemayo maadaama aniguba aan dareemi jiray oo nolosheeda qayb ka mid a aan mulxid ahaan jiray dabcan waan dareemayaa dhibka ay leedahayna waan dareemi karaa sidaa darteed haddaba bal waxaan marka labaadna isweydiinaynaa qofku hadduu sidaa ku dhaco qofka mulxidka ahi marka uu ogaado in noloshani wax hadafa aysan lahayn markuu ogaado ama gaar ahaanba xataa xagga bal dadka fikiraya xaggooda aan wax ka soo qaadana tusaale ahaan filosofarada oo kale bal filosofarada mulxidiintii su-aashan sidaa arrinta ay kaga jawaabeen iyo arrinta waxay kaga jawaabeen bal aynu isla eegno maadaama oo dabcan ay khasab tahay su-aashan qofka inuu jawaab u helaa maadaama ay khasab tahay hadduu jawaab u waayana qofku maadaama walaacayo walbahaar iyo markaa welwel uu qofka dilayo si qofka markaa walbahaarka iyo walaaca looga fogeeyo ayaa filosofaradu waxay isku dayaan su-aashan inay ka jawaabaan waxayna markaa kaga jawaabeen noloshan wax hadafa oo laga leeyahay oo meel kale ka imanaysaa ma jirto sidaa darteed waa inaad nolosha adigu aad hadaf aad u samaysaa oo adigu waa inaad hadaf isku samaysaa arrintaasay dabcan isku qanciyaan waana dad badan oo ka hadlaya oo dabcan xataa dadow aftaana ah oo arrimahan ka hadlaya oo ka odhanaya kac hadaf isku samee waxa iyo waxa qabo dabcan dad sidaa odhanaya horaad u aragteen arrintaasoo markaa keentay arrintaasoo dadka qaar ku keenta markaa si ay noloshooda ay hadaf isugu sameeyaan dartood waa kuwa qaar jirkooda ku mashquula oo macnaha jirkooda inta badan dhisa kuwa kale waa kuwa sportska ku mashquula aduu calaa kulli xaal waxaa lagu sheegay oo lagu oranaya markaa si walaacan iyo walbaarkan aad uga baxdo waa inaad adigu aad hadafka isku samaysaa oo adigu noloshaada waa inaad hadaf u samaysaa laakiin talada noocaasa iyo soo jeedinta noocaasa bal runtii bal iyadana aan qiimayno haddaba maadaama bani aadam nahay dabcan qofka bani aadamkaina naftiisa wuu yaqaanaa qofka bani aadamkaina in been loo sheego oo mar kasta uu been ku noolaado hadduu xataa uu isku khasbo qofku kuma sii jiri karayo qofkuna dabcan isagoo isgaranaya naftiisa been uma sheegi karayo sababtoo ah qofka marka lagu dhaho noloshaadani hadaf ma laha noloshan hadaf kama lihid laakiin adigu hadaf isku samee marka lagu dhaho waxay ka dhigan tahay hadafkii dhannaa ee qofka uu raadinayay qofkiibaa lagu odhanaya hadafka laftiisa adigu samaysabaa lagu odhanayaa arrintaas dabcan ka dhigan been arrintaasina arrin beena ayuu qofku dareemayaa maadaama oo hadafka lagu sheegayo isageeba maadaama uu samaynayo wuxuu dareemayaa arrintan inaysan hadafka dhabta ah ahayn ayuu qofku dareemayaa arrintaasina dabcan waxay ka dhigan tahay qofku inuu been isu sheegayo oo qofku inuu naftiisa been u sheegayo qofkuna dabcan waa bani aadam damiir buu leeyahay si kasta uu been isugu sheego beenta marka dambe iskuma sii wadi karayo dabcan arrintaa ah qofka laga dhaadhicinayo noloshu hadaf ma lehe adigu hadaf isku sameena arrinta noocaasa ee dadka qaar laga dhaadhiciyana dad badan bay u shaqayn weyday aniga lafteeda xataa way ii shaqayn weyday haddaba qodobka haddaan isla fahnay bal qodobka xiga aan u nimaadno haddaan bani aadam nahay dhammaantiin waxaan wada yaqiinsannahay oon dhammaan aan isku wada waafaqsannahay in nolosha bani aadamka ah iyo qofka bani aadamka ah naftiisu inay qiimo leedahay dabcan arrintaa waynu isku wada waafaqsannahay haddaba maadaama bani aadamka dhani uu aaminsan yahay in nolosha bani aadamku ay qiimo leedahay haddana saasay tahay marka lagu eego haddii aad xidhato muraayado markaa mulxidnimo haddaad xidhato aragtida mulxidiinta marka lagu eego xataa nolosha bani aadamku agtooda marka la eego marka afkaartooda la qiimeeyo xataa nolosha bani aadamku qiimo ma leh arrintaana dabcan waxaan ka wado haddaan idin fahansiiyo tusaale ahaan qalinkan aan hadda gacanta ku hayo waa qalin qurux badan Manchester University waa samaysay haddaba bal waxaad isweydiisaa qalinka aan gacanta ku hayo iyo aniga midkeebaa qiimo badan dabcan qof kasta wuxuu oranayaa qalinka adiga ayaa ka qiimo badan ama sidoo kale tusaale kale ka soo qaad tusaale ahaan qof baa xanuun buu qabaa qofka xanuunka qabaa waxa muxuu ahaa marka dhakhaatiirtu ay qiimeeyeen ayaa waxay arkeen qofkan xanuunkiisu inuu yahay qof cadho badan qofka cadhada badanna cadhadaasi markaa qaabkay uga baaba'aysa waxa weeye dhakhtarkii ayaa markaa qofkii cadhada badnaa dub baa loo dhiibay waxaa lagu yidhi mar kasta ood xanaaqdo dubbaha wax ku dhufo oo wax burburi si ay cadhadu kaaga baaba'do sidaa darteed qofkii noocaas ahaa haddii tusaale ahaan loo dhiibay tusaale baan ka soo qaadanayaaye haddii inta
dubbaha loo dhiibo markasta waxaan aqoon wax burburi lagu dhaho qofkaas ma waxaad kula talan lahayd ood ku odhan lahayd dubbahana qof bani aadam ku dhufo oo qof bani aadam burburi mise qalinkan burburi kiibaad ku odhan lahayd dabcan jawaabtu way caddahay qalinka iyo burburi baad ku odhan lahayd sababtuna waxaa weeye qof kasta oo bani aadam ah wuxuu aaminsan yahay oo dabcan si dabiiciyana ugu dhex abuuran oo fikradiisa ugu dhex abuuran in nafta bani aadamku ay qiimo leedahay nafta bani aadamku inay qaali tahay waxyaabaha kale oo dhan inay ka duwan tahay laakiin arrinta nasiib darrada ihi waxa weeye afkaaraha mulxidiinta marka wax lagu qiimeeyo dabcan nasiib darro ma jiro wax farqiya oo noo dhexeeya qofka bani aadamka ah noloshiisa iyo naftiisa iyo qalinka wax qiimo ah oo u dhexeeya dabcan agtooda ma jiro dabcan hadalka markaan dhahana qayb badanoo idinka mid ah waxaa laga yaabaa inaad ila yaabtaan oo dhahdaan cimraan maxaad ku hadlaysaa maad waalan tahay sideeba arrintaasi ku dhacaysaa qof bani aadam ah iyo qalmiya isku mida inaad dhahdo ayaa dabcan laga yaabaa laakiinse inaad la yaabto ma aha sababtoo ah afkaaraha mulxidiintu waxa weeye qalinkaasina atamyo unbuu ka samaysan yahay bani aadamkana qalinkaa waxba ma dhaamo isna atamyada unbuu ka samaysan yahay intaa uma dhaafsana wax kale oo nolol iyo qiimo kale oo nafta bani aadamku ay leedahay dabcan agtooda ma jirto dhammaan waxyaabaha kale iyo haddaad dhahdo maya saa maaha nolosha bani aadamka qiimay leedahay nolosha bani aadamku way fiican tahay haddii aad sidaa qofka mulxidka aragtidiisa marka la qiimeeyo weeye haddaad sidaa ku dhahdo wuxuu ka odhanayaa may waxaasi waxba kama jiraan waxaasi waa afkaaraha bulshadoodii unbaa soo qaadatay noloshuna wax qiimo ah oo ay leedahay ma jirto ayuu ku odhanayaa halkaan runtii waxaa kaaga soo baxaya waxyaabo fara badan iyo afkaaro fara badan oo qofka bani aadamkii uu yaqiinsan yahay oo marka hoosta iyo niyadda uu ka aaminsan yahay oo dhan mulxidiintu meesha way ka saarayaan qofka bani aadamka ana dabcan dabciyan waxaa ku abuuran inuu qofka bani aadamkii inuu raadiyo nolosha inuu hadaf ka raadiyo in nolosha ay qiimo leedahay inuu yaqiinsan yahay oo aaminsan yahay laakiin afkaarahaasoo dhan mulxidiintu waxay odhanayaan afkaaro jira ma aha bay odhanayaan mana aaminayaan halkaan runtii waxaa kaaga soo baxaya inay iska horimaad imanayo qofka bani aadamka ah waxyaabihii ku dhex abuuraa ee fikradiisa ahaa ee uu yaqiinsanaa iyo sidoo kale aragtida markaa mulxidiintu ay qabaan iyo markaa aragtida iyo falsafada ay mulxidiintu qabaan inay iska hor imanayaan ayaa halkaa kaaga muuqanaysa qofka caqliga lehina wuxuu isweydiinaya oo oranayaa waxyaabihii aan aaminsanaa ee igu dhex abuuraa haddii aysan la jaanqaadi karaynin aragtiyaha mulxidnimada dabcan waxbaa khaldan buu qofku isweydiinayaa waxa khaldan buu markaa raadinayaa sidoo kale balan soo qaadano qodob saddexaad qodobkaasoo markaa isaguna nolosha bani aadamka ah muhiim u ah oo dhammaan bani aadamka oo dhani wada qadariyo dhammaan bani aadamka oo dhani ku wada dhashay dhammaan bani aadamka oo dhani uu wada aaminsan yahay arrintaasna waxa weeye waa akhlaaqiyaadka iyo waxyaabaha wan wanaagsan qof kasta oo bani aadam ahi waxyaabaha akhlaaqiyaadka ah iyo waxyaabaha wan wanaagsan waa waxuu ku dhashay oo inay wanaagsan yihiin uu garanayo runta una fiirso haddaan bani aadam nahay ficil walba oon samayno iyo arrin walba aynu samayno waxaa ka dambaysa arrin akhlaaqeed iyo arrin wanaaga oo uu qofka bani aadamkii uu yaqiinsan yahay oo aaminsan yahay ayaa ficil walba uu sameeyo ka dambeeya laakiin nasiib darro haddana mar labaad marka la qiimeeyo aragtiyaha mulxidiinta marka la qiimeeyo ma jirto wax la yidhaahdo akhlaaqiyaad iyo wax akhlaaq la yidhaahdo iyo wax wanaag la yidhaahda marka aragtidooda la qiimeeyo weeye ma jirto arrintaana maxaan ka wadaa arrintaa tusaalaha wax lagu fahmaaye tusaalahaan oo kale annagu haddaan muslimiin nahay annaga muslimiin haddaan nahay iyo islaamkuba waxaanu aaminsannahay wax walba oo wanaagsan meesha aanu ka qaadanayno iyo wax walba oo wanaagsan ujeeddada iyo sababta aanu u samaynaynaa waa ilaahay dartii oo waxaan aaminsannahay qofka muslimkii hadduu run sheego in ilaahay runtaa uu sheegay dartii inuu ka abaalmarinayo markuu wanaag sameeyo wanaagga inuu ilaahay ka abaalmarinayo hadduu qofku xumaan samee isdhaho xumaanta ma samaynayo qof dil hadduu isdhaho qofka inuu dilo wuu iska daynaya wuu ka cabsanayaa sababtoo ah ilaahay dartiibuu uga cabsanaya inuu qof dilo marka u fiirso haddaan muslimiin nahay wax walba akhlaaqiyaad iyo marka iyo camalada aanu samaynayno wax walba oo la xidhiidha ilaahay dartii ayaanu u samaynanayo macnaha si kale haddaanu dhigo waxaana inuu fiican yahay waxaana inuu xun yahay waxyi ayaa noo sheegaya oo ilaahay baa noo sheegaya waxa wanaagsanna inay runtu wanaagsan tahay ilaahay baa noo sheegay sidoo kale in dilku xun yahayna ilaahay baa noo sheegay marka wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa waxaanu haysanaa meel maqsada oonu ugu noqonno iyo cid noo tilmaamaysa oo noo sheegaysa waxa wanaagsan iyo waxa khaldan laakiin haddaad mulxid tahay oodan gebi ahaanba ilaahay rumaysnayn in runta ay wanaag tahay dabcan cid ku sheegi kartaa ma jirto in runta ay wanaag tahayna qaabaad ku caddayn kartaa ma jirto adigoo aaminsan inay runta wanaagsan tahay haddana ma caddayn kartid inay runta wanaag tahay ii cadda haddoo lagu dhaho ma caddayn kartid sababtoo ah halkii ay akhlaaqiyaadka iyo wanaaggu ay ka soo bilaamayeen oo ilaahay ah ayaad bijiritaankiisa aad diiday
arrintaa darteed su-aashana maadaama aad u adag tahay mulxidiinta marka la weydiiyo qaar ka mid a waxay kaga jawaabaan maya saa maaha inuu waxaan wax xun yahay waxaan wax wanaagsan yahay mar kasta bulshada ayaa inoo sheegta oo bulshada waxa isku raacdaana waa wax wanaagsan waxa isku raacda inuu xun yahayna waa wax xun saasay dhahaan laakiin haddana bal isla falsafadooda iyo aragtidooda marka aad qiimaysana dabcan waa arrin aana macquul ahayn tusaale ahaan oo kale waqtigeennana in noocaa la aaminaa ay gebi ahaanba aysan caqligeenna geli karaynin tusaale ahaan naasigu wixii ay sameynayeen dabcan bulshadii waqtigaa joogtay ee naasiyiinta haba isku raacay haddana maanta ma odhan karraa naasigu waxay sameynayeen way ku saxsanaayeen dilkii faraha badnaa ay sameynayeen way ku saxsanaayeen miyayna odhan karraa dabcan waa maya isla saas oo kale haddii dad lasoo qabto oo dad la ururiyo 10 qof ay dhahaan waxaan wuu saxan yahay 10 qof oo kalena dhahaan waxaan ma saxsana dabcan xageebaa la raaci dabcan waxaa kuu muuqanaysa markaa aragtida noocaasi inaysan shaqaynaynin iskana hor imanayso halkaana ugu dambeyntii waxa inooga baxaya in la dhaho bulshadu waxay isku raacdan baa wanaaga waxay isku raacdo inuu xun yahayna wuu xun yahay dabcan inaysan arrintaasina shaqaynaynin baa halka inooga caddaanaysaa waana mar saddexaade halka waxa inooga baxay su-aalaha noocaasa ee ku saabsan akhlaaqda wanaagga runta waajibaadka waxyaabahaasoo dhan marka su-aal la iska weydiiyo dabcan meeshay kasoo bilaamayaan iyo sida ay u jiraan akhlaaqdu inay wanaag tahay sababta waxaa caddaynaya dabcan mulxidiinta iyo afkaaraha mulxidiintu wax jawaabo ay u hayaan ma jirto arrintaasoo markaa ka dhigan in halkaa ay inooga baxayso dabcan dadkan mulxidiinta ah oo afkaaro fara badan qaba kuwaasoo mararka qaar islaamka iyo muslimiinta wax ka sheega oo markaa iyagoo afkaartooda isticmaalaya iyagoo aragtidooda isticmaalaya iyo aqoonta yare kooban ay markaa ay u leeyihiin diimaha iyo sidoo kale arrinta ay sheegayaan ay u leeyihiin iyagoo isticmaalaya marka ay leeyihiin islaamku inuu sidaa sameeyo waa khalad marka ay leeyihiin ay arrinta xukminayaan dabcan haddii isla hadalkooda la raaco oo la dhaho okay haye waxaa tiri islaamku waa khalad baa tiri marka iyaga lagu dhaho in islaamku arrintan uu ku khaldan yahay iyo caddee marka lagu dhaho dabcan arrintii uu sheegayay isagaa iska hor imanaya oo marka afkaartiisa iyo isagu wuxuu aaminsan yahay loo eego in islaamku arrintan uu ku khaldan yahay marka afkaartiisa loo eego dabcan inay khalad tahayba ma caddayn karo mana sheegi karo arrintaasoo dabcan ka dhigan in arrintaasi ay dhibaato tahay qofkaas sidaa ku sugan ee qaabka u fikirayaana dabcan welwel iyo walaaxo markasta ku abuurmanaya sababtoo ah qof run iyo xaqiiqo ku nool ma aha markasta ood leedahay haddii aad mulxi tahay markasta ood leedahay waxaan waa sax waxaan waa khalad marka aad leedahay waa inaad horta marka koowaad aad caddayn kartaa markaad leedahay waa sax iyo markaad leedahay waa khalad yaa kuu sheegi karaya waxaan inuu saxan yahay waxaan inuu khaldan yahay yaa kuu sheegi karaya waa in su-aasha marka hore adigu aad ka jawaabto ood naftaada weydiisaa halkaana runtii waxaa inooga baxaya tusaalayaal fara badanna waa lasoo qaadan karaa laakiin maadaama waqtiga kooban yahay hal qodobo kale haddaan ku daro arrimahaasoo dhan markaynu isku wada darro waxay inoo caddaynayaan haddii adiga aad bini aadam tahay adiga bini aadamka ahaa wixii kugu dhex abuuraa wixii aad aaminsanayd wixii kugu dhex jiray ee damiirkaaga kuu sheegayay iyo inaysan isla jaanqaadi karaynin baa kuu caddaanaysaa afkaaraha mulxidiintu inaysan isla jaanqaadi karaynin oy markasta hor iska hor imanayaan ayaa kuu caddaanaysaa sidoo kale arrinta sii xoojinaysa waxa weeye dad badan oo mulxidiina arrimahan markaa iyo su-aalahan qotada dheer ee hoose kama fikiraan xataa ismana weydiiyaan balse xataa wax dhibaataa iyaga kuma hayso in markaa inay isweydiiyaan qofka mulxidka ah markuu mulxid noqdo ee uu afkaaraha mulxidiinta u qaato maxaa ka dhalanaya afkaaraha dabcan dadku inta ugu badan kama fikiraan oo ismaba weydiiyaan dabcan su-aalaha noocana iyo mulxidnimada iyo waxa ka dhalanaya iyo waxa marka dambe ka imanaya dadku xataa inay isweydiiyaan iska dhaafe dadku way wada mashquulsan yihiin su-aalaha qotada dheer inay isweydiiyaan dabcan waqtiba uma hayaan sidoo kale bal waxa soo qaadataa bal farxadda soo qaado dabcan qof kasta oo bini aadamay farxadda wuu jecel yahay haddana saasay tahay marka farxadda lafteeda si qoto dheer loo qiimeeyo oo la dhaho waa maxay macnaha farxad qofka maxaa farxad geliya su-aalaha marka la qiimeeyo isla saas oo kale san hore usoo sheegnay farxaddu waxay tahay dabcan mulxidiintu jawaab uma hayaan arrintaa farxaddana markaad si qoto dheer aad uga fikirto tusaale ahaan bal waxaad isbabar dhigtaa labada qof mid waa mulxid ma aaminsana noloshiisu inay macno leedahay ujeedada iyo maqsadku halkan u joogo ma garanayo sababta halkan uu u yimid waqtiguu tegi doono markuu dhinto waxa ka dambeyn doona waxaasoo dhan qofku ma garanayo qof noocaasa markaa oo welwel iyo walbahaar walaacaasi uu haysto sidee buu farxad ku helayaa dabcan bal isweydii tusaalaan ku siinay tusaalaha wax lagu fahmaaye
tusaale ahaan meel baad seexatay meel baad hurdadii baad ku dheeraatay adigoo markii aad seexanaysay waxaad isku ogeyd adigoo qolkaaga jiifa laakiin markii dambe ee soo toostay yaa waxaad aragtay adiga oo ku dhex jira tareenkaasoo markaa xawaare markaa aad iyo aad u sarreeya 200 mayl halkii saac jaraya tareenkaasoo markaa albaabkii daaqado ay u wada xiran yihiin qofka noocaasa ay xaaladda ku suganay marka koowaad uu soo tooso bal ka fikir muxuu isweydiinayaa qofku wuxuu isweydiinayaa halkan maxaa i keenay sunay gurigaygii jiifay maxaa halkan u imid tareenkan xaguu ku socdaa xaguu ku dhammaan doonaa sidee wax yihiin xaaladii hore aan ku jiray maxaa iga bedelay qofkaasina dabcan ilaa oo su'aalaha looga jawaabo mooyee qofkaasi xasilooni iyo farxad ma helayo haddii laakiin qofku su'aalaha uu jawaab u waayo qofkaasi waxaad ka rajaynaysaa intuu tareenkaa saaran yahay inuu faraxsanaado dabcan waa maya qofkaasi farxad kuma noolaanayo ilaa oo su'aalaha uu qabo ee markaa su'aalaha muhiimka ah ee ah muxuu ahaa tareenkan xaguu ku socdaa xaguu i geynayaa meeshii aan ku jiray yaa iga keenay ilaa oo qofka su'aalaha looga jawaabo mooyee dabcan qofkaasi farxad ma dareemayo haddaba bal tusaale horeynu ku jirnaaye qofka isagoo markaa sidaa u dawaqsan oo su'aalaha isweydiinaya ayaa tusaalahaan waxaad ka soo qaataa cuntaa usoo dhacday cuntaa loo keenay cunto macaanba qofkii lasoo hordhigay qofkaas hadduu gaajoonayo cuntada inuu yaro cunayaa laga yaabaa laakiin cuntadaa macaan qofka lasoo hordhigay miyay ka baabi'inayaan su'aalihii mabaadi'da ahaa ee ahaa tareenkan xageeba u socdaa su'aalaha miyay ka baabi'inayaanoo cuntada yare loo keenay darteed farxad miyuu ku helayaa dabcan waa maya arrintaa iyo tusaalahan idin soo qaateena wax kale ma aha waa adduunyadan sida tareenkaasoo kale ayaynu ku nahay ilaa oo su'aalaha mabaadi'da ah aynu isweydiinayno la inooga jawaabo aynu jawaab saxa u helo mooyee farxad ma helayno haddaba ugu dambeyntii walaalayaal dabcan haddaan bani aadam nahay waxa bani aadam inaga dhigaya aynu makhluuqaadka kale iyo marka waxyaabaha kale iyo xayawaanaadka kale aynu kaga duwannahay waxa weeye waxaanu nahay bani aadam iyo xayawaan caqli badan baynu nahay xayawaankeena caqliga badan ee bani aadamka ahina ilaa oo su'aalaha laynooga jawaabo mooyaane xasilooni ma heli karayno su'aalahaasina waa su'aalo mabaadi ah oo qof kasta oo bani aadama ku dhex abuuran dabcan su'aalaha sida u muhiimka ahna ee farxadda lagu helayo marka qofka looga jawaabana dabcan nasiib darro mulxidiinta iyo adduunka iyo afkaaraha mulxidiintu su'aalaha noocaasa wax jawaaba uma hayaan haddaba saddexdaa qodob ee muhiimka ah een soo sheegay ee qof kasta oo bani aadam ku dhex abuuran qof kasta oo bani aadam isweydiinayo haddii haddaba mulxidiintu ay ka jawaabi kari waayeen jawaabna aysan u haynin balan isweydiino su'aalaha noocaasa islaamku sideebuu uga jawaabay su-aasha koowaad ee ah ujeeddada iyo hadafka aynu adduunyadan u joogno iyo nolosheenana ujeeddada laga leeyahay qur-aanku waxa uu kaga jawaabay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay waxa uu yidhi jin iyo insi wax kale uma abuurin oon ka ahayn inay aniga iyo caabudaan uun arrintaasoo ka dhigan ujeeddada iyo maqsadka aynu adduunyadan u nimid waxa weeye inaynu alle oo keliya caabudno wax kale aynaan caabudin runta una fiirso hadafka weyn iyo hadafka ugu weyn iyo ujeedada ugu weyn adduunyada la inoo keena dartii ayuu qur-aanka dhanna uu ku dul wareegayaa qur-aankana dhinac walba haddaad ka qiimayso waxa uu ku wareegayaa hadafka iyo ujeedada aynu adduunyada u nimid darteed ayuu qur-aanka dhaniba ka wada hadlayaa oo kalbo dhinac uu kaga imanayaa arrintaasoo runtii cajiiba kana dhigan in qur-aanka dhaniba uu ka hadlayo bani aadamkan iyo ujeedadiisa iyo hadafka noloshiisu ay tahay iyo sababta adduunyada loo keenay iyo sababtuu u nool yahay iyo markuu dhinto meeshuu tegi doono waxyaabahaasoo dhan ayuu markasta qur-aanku ka jawaabaa weliba qur-aanku keliya dadka uma sheego hadafka iyo ujeedada adduunyada loo keenay iyo sababta halkan u joogaanoo keliya uma sheego balse sidoo kale wuu hagaa wuxuuna u sheegaa sidii ay marka ay u noolaan lahaayeen hadafka loo keenay sida ugu wanaagsan ay u xaqiijin karayaan qaabka laga rabo in noloshoodu ay ahaato inta ay dunida joogaan marka dambe ay dunida ka tagaan meesha ay tegi doonaan waxyaabahaasoo dhan oo muhiima qof kasta oo bani aadamana uusan farxad dareemaynin ilaa uu su'aalaha looga jawaabo mooyaane waxaa si dhammaystiran oo tafatiran uga jawaaba qur-aanka sidoo kale qodobkii labaad kaasoo ah in bani aadamku qiimo leeyahay nolosha bani aadamku ay qiimo leedahay markasta qur-aanku wuu ka hadlaa qur-aankuna markasta waxa uu sheegaa nolosha bani aadamka iyo siday qaaliga u tahay qiimaha ay leedahay nafta bani aadamku mar walba qur-aanku wuu sheegaa xataa ilaahay qur-aanka waxau noogu sheegaa haddii aan bani aadam nahay inuu ina karaameeyey oo nolosheenna xataa qofka muslimka xataa qofka gaalkii in noloshiisu iyo markaa naftiisu inay karaamo leedahay ayuu ilaahay qur-aanka xataa inoogu sheegay isla saasoo kale waa mar saddexaade qur-aanku markuu inoo sheegay in nolosheenna ay qiimo leedahay sidoo kale wuxuu inagu hagaa qaabkii markaa tacaamulkeena iyo waxaynu samaynayno iyo waxaynu ku dhaqmayno iyo dad kale sina ula dhaqmayno sidii aynu u wanaajin lahayn aynu iyadana qiimo ugu yeeli lahayn ayuu markasta qur-aanku inoo sheegaa ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa waqti iga dhamaaday dabcan hadda waqtiga iga dhamaaday marka dambe aan soo noqdo ayaan qaybaha kalena idin dhammaystiri doonaa Thank you. And thank you for inviting me.
waad mahadsantihiin waadna ku mahadsantihiin casuumaadiina. halkana maanta waxaan ku matalayaa oon wakiil aan ka ahay isbahaysiga caalamiga ah ee mulxidiinta. kasoo qaybgalayaashiinuna waad mahadsantihiin. haddii idinku aydan kasoo qaybgeli lahayna dhacdani maanta iyo doodani halkan dabcan maysan ka dhacdeen. aniguna dabcan isuguma yeedho mulxid isuguma yeedho, balse waxaan isu aqaanaa oon isugu yeedhaa qof bilaa iimaana oon waxba rumaysnayn. halkana maanta waxaan u imid saaxiibtinimo darteed baan u imid. hadda ka hor waxaan ahaan jiray macallin sayniseed baan ahaan jiray, inkastoon hadda howlgab ahay. haddana saasay tahay inaan kalaaskaygii iyo ardaydeedii aan eriyana ma doonayo. dabcan haddaan dhaho ardaydeedaan erinayaana taasi waa doqonnimo, sababtoo ah waad iga badan tihiin. haddana saasay tahay waqtigayga soo socda waxaan odhan doonaa hadallo idinku adkaan doona. haddaan haddaba mawduuca u daadego su-aasha ah noloshuma waxay noqonaysaa mid aan habboonayn ilaahay la'aantii. su-aasha haddaan kaga jawaabo oon intaa ku dhammeeyo ma iska tagaa? haddaba su-aasha anigu intaan kaga jawaabo halkaa kuma dhaafayo, balse su-aasha waxaan kaga jawaabayaa noloshu waxay noqonaysaa mid aan habboonayn marka ilaahay uu jiro ee ilaahay uu qofka aaminsan yahay, markaasayba noloshu noqotaa mid aan habboonayn. su-aashaasna haddaan ka jawaabno, su-aashu marka hore laba qaybood bay ka kooban tahay. labada qaybooduna waxbaa maskaxda lagu hayaa. qaybta koobaad su-aashu waxaa laga soo qaadayaa oo kale siduu inuu ilaahay uu jiro oo kale. su-aashana qaybta labaadi waxay sheegaysaa oy caddaynaysaa inaysan habboonayn in noloshu ay noqoto midaan habboonayn. sidaa darteed bal su-aasha intaan laba u kala qaado mid kasta aan gaar uga hadlo. su-aashan haddaba qofkii soo diyaariyey wuxuu u malaynayey oo maskaxdiisa ku jirtay inaysan habboonayn in noloshu ay noqoto midaan habboonayn. su-aasha lafteeduna dabcan iyada unbaa iska aragtiya. innaguna haddaan bini aadam nahay horta maskaxda ayaynu ka noolahay oo wax walba inaynu maskaxayno aynu fahno ayaynu isku daynaa. si dabiiciyana marka laynoo eego waxaynu isu haysanaa inaynu wax walba iyo inaynu nolosha oo dhan iyo wax walba inaynu udubdhaxaad u nahay ayaynu isku haysanaa. dabcan hadda ka horaa inta uusan saynisku horumarin waxaynu u malayn jirnay in dhulku uu yahay udubdhaxaadka solar systemka, meerayaasha kale iyo waxyaabaha kale oo dhanna inay dhulka ku wareegaan baynu u malayn jirnay hadda ka hor. balse hadda waxaynu ognahay in arrintaa iyo fahamka noocaasihi inuu khaldan yahay. sidoo kale waxaynu u malayn jirnay in ilaah ku sheega ilaahay ahi in dunida uu inaga inoo sameeyey oo dunida dhanba in inaga la inoo sameeyey ayaynu u malayn jirnay. dabcan balse aragtida noocaas ahi wax daliil ah ma laha, balse fahamka noocaas ahi waa faham maanta loo yaqaano. qofka sidaa maanta wuxu fahansani waxa uu qabaa cudur maanta loo yaqaano cudur uu qofku isku malaynayo inuu aad iyo aad u muhiim yahay, wax walbana uu ka sarreeyo. haddaba bal marka hore su-aasha ah ilaahay dunida ma inagu inoo sameeyey, haddaynu su-aasha ka jawaabno bal aynu isweydiino su-aashaasi ma su-aal caqligalaba mise waa mid aan habboonayn oo markaa ay khalad tahay xataa in lagu fikiraa. hadda waxaan ognahay aynu cilmigeenna ku ogaanay in dunidu ay jirtay 13.8 bilyan oo sano. inkastoo hadda ka hor aynu odhan jirnay dunidu waxay jirtay 13.7 bilyan oo sano, inkastay qiyaas un tahay haddana qiyaastii sidaa ahaa hadda aynu xaqiijinay duniduna waxay jirtay 13.8 bilyan oo sano. halka markaa bini aadamku uu dhulka yimid ku dhowaad 200,000 oo sano ka hor uu yimid. sidaa darteed su-aasha caqligalka ah ee laisweydiin karaa waxa weeye intii kale maxaa dhacday intaas muddada u dhaxaysay, muddada markaa gaadhaysaa 13,799,800,000 oo sano. intaas maxaa dhacayay? intaasoo dhan oo ah intii dunidu ay jirtay iyo intii bini aadamku u yimid intaa u dhaxaysay oo dhan maxaa la qabanayay, maxaase dhacayay? farqiga sidaa u badan ee u dhaxeeya dunida iyo bini aadamka, farqigaasi miyuusan ka dhignayn farqi lala yaabo? sidoo kale aniguna maadaama nahay macallin sayniseed wax xaqiiqooyin sayniseed baan hadda idiin soo bandhigi doonaa. weliba waxaan idiin soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin la xaqiijiyey, la arki karayo, la tijaabiyey, iyo sidoo kale aragtiyo sayniseed kuwaasoo markaa iyaguna aragtiyaha sayniska markaa ku salaysan. haddaba maanta waxaynu ognahay in dhulku uu cadceedda ku wareego. cadceedduna waxaynu ognahay inay tahay xidigtaasoo markaa iyaduna ka tirsan galaksiga loo yaqaano Milky Way-ga. sidoo kale Milky Way-ga waxaa la sheegaa ku dhowaad 100 bilyan ilaa 200 bilyan oo cadceedo oo kalehi inay markaa ku yaalaan. sidoo kale waxaa jira 100 bilyan ilaa 200 milyan oo kale oo galaksiyo waaweyn ah oo iyaguna sida Milky Way oo kale ah ayaa jira.
sidoo kale maanta waxaynu ognahay in markaa cadceedaha kale ee jira ee markaa meerayaasha kale ku yaala in cadceedaha kalena ay sidoo kale leeyihiin meerayaal kale oo cadceedaha kale ku dul wareega inay leeyihiin. sidaa darteed waxaasoo dhan marka la qiimeeyo meerayaasha waaweyn ee aadka u waaweyn ee aadka u faraha badan marka loo eego dhulka, taas waxay ka dhigan tahay in dhulku marka uu aad iyo aad u yar yahay marka la barbar dhigo meerayaasha kalena in dhulku wax aad iyo aad u yar uu agtooda ka noqonayo. dhulkuna maanta wuxuu ka mid yahay hal meerayaasha kale ee jiraana waa kuwa hadda halkan idinka muuqda. dabcan tiraba hadda anigu kuma sheegi karayo, macnaha intaas oo meere tirada sidaa u badan oo meerayaala ayaa maanta dunida ka jira oo ah inta aynu markaa maanta naqaano. runtii balo fiirso tirada halkaa ku taalla farabadnida, xataa haddaynu isku dayno inaynu tirino, tusaale ahaan markaynu gaarhno 9 nambaree ugu horeeya waa milyan, haddana bilyan baynu gelinaa, trilyan baynu sii gelinaa, quadrilyan baynu gelinaa, waa lasii dhaafaya haddana ilaa marka dambe tiro aad iyo aad u badan ay ka noqonayso. haddaba bal nambarkaasi siduu u badan yahay si aan markaa aan bal idinku xaqiijiyo tusaalaan idin siinaya. tusaale ahaan idinka dooda daawanaya, bal waxaad ka soo qaadaa inaad tirin karto 1 ilaa milyan inaad tirin karto, macnaha inaad oran karto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilaa milyan intaad ka gaarsiinayso. weliba si aan idinku sii fudaydiyo, tusaale ahaan oo kale waxaad ka soo qaadaa hal nambar oo walbaba inaad halkii sekinba hal nambar aad sheegi karto ood oran karto 1 2 3 macnaha halkii sekanba mar kasta oo sekan dhaco inaad hal nambar aad sheegi karto. dabcan nambaraduna marka hore way ku fududaanayaan, laakiin markaad milyanka usoo dhawaato oo tusaalahaan oo kale aad gaadho 999,999 halkaa nambar oo keliya inaad dhahdo markaas waxay kugu qaadanaysaa 3 sekan bay kugu qaadanaysaa. sidaa darteed waxaad ka soo qaadaa qof xaalada ku sugan oo sidaa u tirinaya, qofkaasoo markaa aanan seexanaynin 24 saac aan seexanaynin, laakiin markuu wax cunayo iyo markuu suluy gelayo intaas ayuu aamusaya, inta kale oo dhan nambarada ayuu tirinayaa. sidaa darteed qof xaalada ku sugan waqti inteen leeg bay ku qaadan kartaa inuu 1 milyan uu gaadho. marka bal qiyaasa ma xisaabin kartaan? bal isku daya. dabcan idinka muuqaalka daawanayana bal isku daya inaad xisaabin kartaan. marka dadkii dood daawanayay ayuu markaa weydiiyey inay isku dayaan. qof baa hadlay waxau yidhi 2 cisho, qof kale yidhi 31 sano, markaasuu yidhi oo aad baad u badisay. qof kale hadlay oo yidhi 2 usbuuc ama 2 toddobaad. markaasuu profesorku yidhi haa Fariid adigaa gartay, waxaan u malaynayaa inaad tahay mathematician. markaasuu qofku yidhi haa. marka u fiirso qof aanan markaa muddo 2 usbuuca ama 2 toddobaada qof aanan seexanaynin waxay ku qaadanaysaa 1 ilaa milyan inuu tiriyo. 2 usbuuc bay ka qaadanaysaa. u fiirso 2 usbuuc waxaa qaadanaya waa qof aanan seexanaynin. sidoo kale waa 1 milyan ugu horeeya. haddii markaa aad dhahdo 2 milyan ma gaarsiinayana waad dareemi kartaa 2 usbuuc oo kale yaad ku dari markaa 2 usbuuc hore. marka bal qiyaas bilyankuna muxuu noqonayaa waa 2 usbuuc oo markaa oo la kunjeeray, macnaha 2 usbuuc oo kunjeera ayuu bilyanku uu ka dhigan yahay. taasoo ka dhigan markaa 1 bilyan qofku inuu tiriyana waxay ku qaadanaysaa muddo 40 sano ah oo uusan seexanaynin ayay ku qaadanaysaa bay ka dhigan tahay. sidaa darteed bal waxaad qiyaastaa nambarka intaa la eg aan tiraba lagu sheegi karaynin oo la yidhi marka aanu tirinana waqtiga ay qaadanayso farabadnida. dabcan waad dareemi kartaan. haddaba ujeeddada aan qodobka uga leeyahay waxa weeye dhulka marka loo eego dunida kale iyo meerayaasha kale ee adduunyada ka jira, dhulka marka loo eego dhulku aad iyo aad buu u yar yahay. haddana saasay tahay dhulku isagoo sidaa u yar marka dunida loo eego, haddana saasay tahay qofkeenan iyo qofkan adiga i daawanaya iyo aniga hadlaya waxaynu maanta ka mid nahay 8 bilyan oo qof oo dhulka maanta ku nool ayaanu ka mid nahay. bani aadamkuna muddadaa uu soo jiray 200,000 sano uu soo jiray, weligeed iyo allaheed qof adiga oo kale ah horay dunida uma soo marin, adiga gadaashaana qof adigoo kale ah dunida dib uma soo mari doono. arrimahaasoo dhan oo markaa inoo muujinaya dhinac walba marka laga eego, xataa xagga xisaabta marka laga eego inaynu markaa aad iyo aad u yarrahay, arrintaasoo inoo muujinaysa. sidoo kale haddaan soo qaadano, haddaynu bal muddada aynu noolahay aynu soo qaadano, maanta cumriga qofka bini aadamka ahi celcelis ahaan bini aadamku 79 sano ayay noolaadaan. sidaa darteed qofku hadduu noolaanayo 79 sano bal muddadaas waxaad barbar dhigtaa waqtigii iyo muddadii ay markaa dunidu ay soo jirtay. gaar ahaan dhulkan aynu ku noolahay muddadii uu soo jiray, dhulkani haddaba waxa uu soo jiray muddo gaadhaysa 4.5 bilyan oo sano ayuu dhulku jiray. arrintaasoo inoo muujinaysa dhinac walba ood ka eegto iyo xataa
taariikh ahaan iyo markaa iyo tiro ahaan iyo markaa waqti ahaanba haddaynu dhinac walba ka eegno haddii aan bini aadam nahay aad iyo aad iyo aad baynu u yarrahay haddii dunida lainoo eegana innaga bini aadamka ahi quraanjo ayaynu dunida ka nahay haddaba innagoo quraanjadaasa oo dunida dhan quraanjada ka ah ayaa siduu markaa uu sheegaya Cimraan Xuseene. Cimraan wuxuu sheegaya markaa innaga quraanjada ahi inaynu markaa ujeedo iyo hadaf aynu leenahay. sidaa darteed balan isweydiino ma muhiim baa nahay ma muhiim baa tahay dabcan su-aasha haddaan ka jawaabana waa maya adiguna muhiim ma tihid aniguna muhiim ma ihi sidoo kale fikirkeenna iyo aragtideenna ma muhiim baa waa maya sidaa darteed arrinta aan habboonayn ee qariibka ahi waxa weeye in haddaan bini aadam nahay aynu isku malayno inaynu muhiim nahay inaynu isku malayno arrintaasa markaa wax lala yaabo ah. haddaba su-aasha qaybtii hore haddaan ka jawaabay bal qaybta dambena aanu imaado haddana aynu ilaahay ka hadalno. haddaba idinku waxaad aaminsan tihiin inuu ilaah jiro aniguse ma aaminsani. haddaba haddaynu ilaahay ka hadalno oon weydiino aynu isweydiino aynu dhaano inuu ilaahay uu jiro wax caddayna ma loo hayaa dabcan nasiib darro inuu ilaahay uu jiro wax caddayna looma hayo. sidaa darteed hadduusan ilaah jirin oo tusaalahaan oo kale haddii aragtidii ay sax tahay oo la dhaho markaa ilaahay ma jiro haddii la dhaho arrintaasina ay sax tahay waxay ka dhigan tahay noloshu markaa in la dhaho may habboon tahay iyo ma habboono iyo waa qariib meesha ma imanayso. maadaama uusan ilaahay uu jirin innaguna maanta waxaynu ku dul dhegannahay oo aynu markaa ku dul dawaqsannahay adduunyo weyn taasoo uusan ilaah ka jirin. maadaama uusan ilaah jirinba in hadda markaa laga werwero in noloshu ay habboon tahay iyo inaysan habboonayna saa darteed ma aha. sidaa darteed in noloshu ay tahay mid qariiba iyo mid aan qariib ahayn in noloshu tahay mid habboon iyo mid aan habboonayn dabcan qof xukmin kara oo odhan kara sidaa unbaa saxa dabcan ma jiro. qof walbana aragtidiisa unbay markaa ku xidhan tahay in noloshu ay qariib tahay iyo inaysan ahayn qof walba iyo aragtidiisa weeye. balse anigu waxaanba yaqiinsanahay oon ku qanacsanahay in noloshu ay noqoto midaan habboonayn oo qariiba inay noqoto marka uu qofku uu ilaahay uu aamino. markaa bal haddana aynu tusaale soo qaadano oo aynu eegno dadyow markaa ilaah aaminsani waxyaabaha ay sameeyaan ay ku dhaqmaan bal aynu soo qaadano. dabcan horta intaana tusaalaha soo qaadanina idinka maanta dooda kasoo qayb gala ee halkan isugu yimaaday waan idinku faraxsanahay sababtoo ah dad waxaad tihiin wax bartay aqoon leh dad fudfudud ma tihiin sababtoo ah maanta haddii aan hortaagnaan lahaa dad aan wax barnin oo jaahiliina oo markaa aan hadallada aan odhan doono aan maanta iyo hadallada aan hore usoo idhi aan hortooda ka odhan lahaa halkaasaa la igu tooriyeyn lahayo halkaasaa la igu dili lahaa. haddaba dadowga qaar oo ilaah aaminsani waxyaabaha lagu yaqaano waxa ka mida waa dad asal raac ah waa dad mayal adag oo xag jiriina. dadowga ilaah aaminsanina malaayiin qof ay markaa si xun ula dhaqmaan oo ay dilaan. dadka qaara ficlada xunxun bay galaan oo geystaan oo dad bay sidaa u laayaan iyagoo oo markaa aaminsan oo yaqiinsan inay jirto nolol kale oo marka ay dhintaan ay geli doonaan. waxa ayna qabaan noloshan ay hadda ku jiraan oo keliya inaysan ahayn balse nolol kale ay jirto. haddaba u fiirso fahamka noocaasa iyo markaa aragtida noocaasa ayaaba markaa ayaaba noloshan adduunyada qiimaha ka qaadaysa. sababtoo ah dadka noocaasa waxa loo ballan qaaday ee nolosha dambe ku sugayaa waa wax aan horey loo arag oo cajiiba oo sixir ah oo weligiiba jiraya kaasoo lagu waarayo. noloshaana qofku waxa uu ka helayaa wax walba oo uu jeclaa oo uu tamanin jiray halka noloshani ay tahay nolol gaaban maalayacniya dhib badan. noloshaa dambana keliya waxaa lagu helaa waxa weeye inaad markaa ilaahay aad dambi dhaaf weydiisato xogaa aad tukato waxyaaba yaro camala aad samayso si aad markaa aad halkaa aad u gasho. arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa markaa keenta aragtidan shahiidnimada. sidaa darteed fahamka noocaas ahi waxa uu meesha ka saarayaa oo uu markaa oo uu dhimayaa noloshii aynu adduunyada aynu ku joogna iyo nolosha aynu hadda noolahay ayuu qiimaha ka qaadayaa. waxa ayna fahamka noocaasi meesha ka saaraysaa qofka inuu mas-uul ka noqdo ficil walba iyo wax walba uu geysanayo. arrimahaasoo isbiirsaday oo markaa keenaya qofka inuu doono inuu ilaahay u dhinto ilaahay dartii inuu u dhinto taasoo markaa iyaduna kalifta qofku inuu dil badan geysto oo dad badan inuu markaa xasuuqo arrintaasoo keensanaysa.
sidoo kale aragtidayda iyo xagganaga marka wax laga qiimeeyo annagu haddaan mulxidiin nahay annagu mar intaanu adduunyada joogno maadaama aysan jirin cid aanu u dhimanno iyo maadaama nolol dambaba aanan aaminsanayn wax aanu u dhimanaa meesha ma yaallo annaga ayaa markaa idinka nolol jecel halka dadka ilaaha aaminsani ay aaminsan yihiin inuu jiro ilaah ay isaga dartii u dhimanayaan sidoo kale qodobka kale ee markaa cimraan xuseen uu hore uga soo hadlay taasoo ah in noloshu ay hadaf leedahay oo markaa uu jiro hadaf la xaqiijinayo arrintaasina wax caddayn loo hayo ma aha xataa balqiyaas bilaayiin sano ka hor makhluuqaadkii noolaan jiray ee adduunyadan joogay keliya inay noolaadaan unbay u noolaayeen ugu dambayntiina hadalkayga halkaasaan ku soo koobayaa. Thank you, John. You have run out of time. Thank you. Thank you. Right, so with introductions out of the way, we will move on to rebuttals. So each side has 10 minutes to rebut the other side, starting with Imran. Again, time will start once you get to the podium. Okay, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay. John dabcan markuu hadlayay hadalkiisii waxyaabo fara badan ayuu isku dardaray waxyaabo marka hal qodob oo kaliya dabcan muusan ka hadalladii uu soo qaatayna waxa kamid ahaa inagu haddaan bini aadam nahay muhiim ma nihin aragtiyaheenu muhiim ma aha xataa buuggiisa dabcan arrintaas ku qoray laakiin John waxaan oran lahaa haddii arrinta aad aaminsan tahay maxaad maanta halkan u timid oo aragtida u difaacanaysaa oo dadkan isku dayaysa in aragtida aad ku qanciso for your position, right? First and foremost. marka maxaad uga soo horjeesataa gaar ahaan buuggaaga waxaad ku qortaa dadka wax aaminsan ilaaha aaminsan inaad ka soo horjeeda aad ku qortaa buuggaagan aad qortay oo gacanta ku hayo oo dabcan oo buug yar aan ahayn oo buug adag ah buugga sidoo u dhan yahay waxaad ku qoraysaa marka inaad dadka ilaaha aaminsan aad ka soo horjeedo mar walbana aragtiyahaaga ayaa difaacaysaa saa darteed haddii aad leedahay haddaan bani aadam nahay aragtideena iyo inaguba muhiim ma nihin haddii aad leedahay maxaad waxaan oo dhan u samaynaysaa sidoo kale John markuu hadlayay si uu u muujiyo in noloshu ay qariib tahay oo noloshu aysan wax weyn baahayn wuxuu soo qaatay dhulka waxa uu yiri marka dhulku wuxuu kamid dhulka marka la eego buu yiri marka adduunka kale iyo meerash kale marka loo eego dhulku wax aad u yar buu yiri wuxuuna barbar dhigay marka dhulka iyo marka inta meere ee jira number fara badan soo qaatay marka tusaleesha uu soo qaadanayay halka ay mawduucina kala xiriirto dabcan ma fahmin anigu balse haddana saasay tahay wuxuu marka uu tusaleesha u soo qaadanayay in noloshu marka aysan muhiim ba ahayn sidaa darteed marka adduunyada sida uu eegaysay sida uu qiimeynayay waxa la oran karaa aragtidaada un bay ahayd balse laakiin qofka hadduu jeex kale iyo dhinac kale ka istaago aragti kale oo aragtida ka duwan ya ka soo baxaysa aragtidaas oo ah arrintaas lafteeda ayaa inoo muujinaysa cajaa'ibta dhulka sababtoo ah dhulka yar ee buluuga ah ee marka intaasoo meere ee kale haddana saasay tahay uu ka duwan yahay waa meeraha keliya marka waxaasoo meere la wada eego waa meeraha keliya ay maanta noloshu ay ka suurtoobi karayso laguna noolaan karayo sidoo kale ay ku nool yihiin makhluuqaad caqli badan oo inaga ah oo bini aadam ah ay ku nool yihiin halkaa marka laga eegana waxaaba halkaa ka soo baxaysaba in dhulku marka iyo sidoo uga gedisan yahay ugana duwan yahay meerayaasha kale dabcan aragti marka gabi ahaanba ka duwan fahamkaagii ayaaba laga qaadan karaa isla tusalaha soo qaadatayna isla tusalahaaga ayaa laga cadeyn karaa in dhulku cajiib yahay dhammaan meerayaasha kalena uu ka duwan yahay ay jirtana marka dhulkan yar ee buluuga ahi waxa uu dheer yahay meerayaasha kale ee faraha badan ee nambarkooda ataxaysi waxa uu dheer yahay oo meerayaasha kale uu ka duwan yahay inay jirto ayaaba halka laga cadeyn karaa sidoo kale haddaan u gudbo marka qodobada kale ee ka hadlaysay waxa soo qaadanaysa marka dadka ilaaha aaminsan in marka waxyaabo qariib ay sameeyaan oo marka ay iyagu aysan nolosha adduunyada ku qanacsaneen dad badan iyo wax badan iyo marka ficilo xunxun ay geystaan arrintaana dabcan buuggaaga waad ku qortaa oo badana kristanka ayaad marka yaad weerartaa oo arrimaha ku eedaysaa balse laakiin su'aasha intaan kaga jawaabin waxaan jeclahay inaan buug ku soo qabto haddaba taariikhda marka dib loogu noqdo ee qayb taariikheed wax loo eego dabcan way jireen dadyow ficilo xunxun geystay oo dad badan laayay oo isugu jiray muslimiin iyo kristan badad isugu jiray waa ay jiraan arrintaasna arrin la dafirsan yahay hadda ma aha laakiin arrintani kaliya kuma koobna oo dadka ilaaha aaminsan kuma koobna sidoo kale dadowga mulxidiinta ah in ilaahba aaminsaneen iyaguba ficilo sida u xunxun iyo marka dad fara badan waa ay laayeen haddaba buugana soo qaaday in gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa War and Peace in Islam buuggaasina marka waxa uu taxayaa dadowga marka dadka ugu faraha badan taariikhda laayay marka dhinac kasta iyo diimaha haysteen buu ka eegayaa kristaanimada kale ee dadka kristanka haysta ee macnaha dadka ugu faraha badan laayay waxay u dhaxeeyaan inay laayeen
tiro gaadhaysa 119 milyan ilaa 236 milyan inta u dhaxaysa kaalinta koobaadna dabcan dadka kristaanka ah ku jira bal qiyaas kaalinta labaad yaad u malaynaysaa kaalinta labaad waxa ku jira waa mulxidiinta dad mulxidiin oo ilaah aaminsanayn baa ku jira waxayna laayeen in u dhaxaysa 124 milyan oo qof sidaa darteed John haddii markaa qaabkaad wax u qiimeynayso wax lagu qiimeeyo oo xagga nambaradii waxa aad eegto dabcan waxaad ku arkaysaa in xagga nambarada labadii dhinacba ay ku jiraan arrintaasina hadda adiga daliil kuma noqon karto sidoo kale Johnow waxaad tiri oo hadalkaaga ku jiray inta adduunyada joogto wax walba ay samayn kartaa marka dambana jannada ayaad gelaysaa laakiin waxaan ku leeyahay fahamka noocaasi ma aha faham islaamku uu qabo balse fahamka islaamku waxa weeye islaamku wuxuu qabaa in noloshani horta in noloshan adduunyada marka aakhir la barbar dhigo in noloshani ay aad iyo aad u yar tahay inta yar iyo muddada yar ee adduunyada joogtana rabbi waxa uu noo sheegay inaanu wax wanaagsan aanu sameeyno bini aadamka si fiican ugu shaqeyno wax dulmiya aanan geysanin wanaagga faraha badan ee aanu sameynayno ee nala faray inaanu sameyno intaanu adduunyada joogno wanaaggaas ayaa marka dambe sabab u noqonaya inaanu jannadaas abadiga ah inaanu marka dambe geli doono isla saasoo kale dadka aan wax wanaaga sameynin dulmiga geysta dadka laaya ficilada xunxun geysta iyaga tigniin baa la siiyaa balse jannada ma heli doonaan dabcan sida u dhigtayna ma aha qofka intuu adduunyada joogo intuu wuxuu doono iska sameeyo inuu marka dambe janno gelayo sidaa ma aha sidoo kale John markaad hadlaysay waxaad caddaynta ka dhiganaysay ee dilishanaysay ee oranaysay waxaasan ku qancaya waxay u ekeyd in marka aad lahayd sidoo kale salahan oo kale in aragtiyaha sayniska aad qaadanaysay oo oranaysay wixii la arki karayo la tijaabin karayo ee marka unbaa xaqiiqo ah oo marka runa yaa lahayd taasoo marka qaabka aad wax u qiimeynaysan marka la eego dabcan isla su'aal baan ka weydiin karaa su'aashuna waxa weeye saynisku waxa weeye maqaabka kaliya ee runta iyo xaqiiqada lagu gaari karayo ma sayniska kaliya unbaa haddii aad sida aaminsan tahay waana sidii marka hadalkaaga ka muuqatay dabcan isla arrinta adiga ayaaba ka soo horjeeda oo adiga ayaa la wajilinaya sababtoo ah buugga aad qortay aragtiyo ayaa ka buuxa aragtiyaha faraha badan ee buuggaaga ku qortana ma aha aragtiyo si scientific loo xaqiijin karayo ma aha sidaa darteed haddaad aaminsan tahay waxa uu saynisku sheego oo kaliya in la qaato iyo in runta haddaad aaminsan tahay maxaad arrinta adigu ugu dhaqmi weyday oo buuggaagan aragtiyo fara badan iyo aragtiyo fara badan oo adigu aad qabto maxaad ugu qortay ugu dambeyntiina haddaan halkaa kaga imaado hadaladii markaa John dabcan hadalkaygii hore qayb yar ayaa sanad haddii aan si dhammaystiro dabcan horta waa inaad fahantaan doodan aynu ka hadlaynaa ma aha jiritaanka ilaahay doodan kama hadlayno ee waxaynu ka hadlaynay noloshu mid bilaa qiimaha oo mid bilaa macno ah miyay noqonaysaa ilaahay la'aantii waxaynu soo cadaynay xagga mulxiinta marka laga eego in noloshu ay noqonayso mid bilaa qiimaha inay noqonayso balse in nolosha in islaamku uu qiimo u sameynayo ayaan hore usoo sheegay hal tusaale haddaan kusoo gabagabeeyo tusaalahaas marka inoo muujinaya sida iyo markaa qaabka ay nolosha bini'aadamku ay qiimaha u leedahay annaguna haddaan muslimiin nahay maadaama aanu aaminsan nahay nolosha waxa qiimaha u yeelaa inuu ilaahay uu yahay oo ilaahay uu nolosha maadaama qiimo uu siiyey haddaba mid tusaalahan kusoo qaadanaya qur-aanka haddaad eegto suuratu maa'ida haddaad eegto qur-aanka markaa waxaa ku sugan oo ilaahay halkaa kusoo qaadanaya qiso markaa dhacday gaar ahaan qisada haabiil iyo qaabiil ama bibalku u yaqaano John bibalkaad fahmaysaay Cain iyo Abel u yaqaano qisadaas hadda waxaa sheegaysaa Cain iyo Abel waxay ahaayeen laba wiil oo markaa Aadam u dhalay Aadamna markaa bini aadamka oo dhan qofkii u horreeyay buu ahaayeen labada wiilba markaa way istileen midkoodba midka kala dilay waxayna geysteen markaa dilkii ugu horreeyay ee dhulka ka dhaca ayaa waqtigaa ay geysteen beriga haddaba uu dilkaasi dhacay ayaa rabbi markaa qaanuun ayuu dejiyey qaanuunkaasoo ilaa maanta shaqaynaya ilaa maantana jira qaanuunkaasna waxa weeye qofka dila sax qadaraa u dila naf bini aadam ah oo waxba galabsanin waxay ka dhigan tahay isagoo bini aadamka oo dhan laayay qofka naf badbaadiyaana waxay ka dhigan tahay isagoo bini aadamka oo dhan badbaadiyey halkaana runtii waxay inooga muuqanaysaa qiimaha markaa islaamku uu nafta bini aadamka ah uu siiyey sidaa darteed in nolosha bini aadamku ay qiimo leedahay iyo haddii aan bini aadam ahay wax walba oon dareemayo oo damirkaygu ii sheegayo iyo wax walbo markaa wanaagsan islaamka ayay isqaadanayaan halka marka laga eego aragtiyaha ilxaadka laga eegana wax walba oo markaa aan nafsiyan aan dareemayo fitradeedana ku abuuran aysan waxa ay aragtida ay madaxintu aaminsan yihiin aysan marnaba isqaadanaynin ugu dambeyntiina hadalkayga halkaas kusoo gabagabeynaya dhammaantiin aad badan islaam Thank you. Imraan wuxuu isku qasayaa atheismka iyo naturalismka atheismkana haddii la qeexo iyagu waa dad aan waxba rumaysnayn waxa aysan rumaysnayn waxa dadka muxuu ahaa mu'miniintii ay rumaysan yihiin aysan rumaysnayn ilaa dadka mu'miniinta ahi ay xujo cad iyo wax cadoo markaa la aamini karayo inta ay la imanayaan iyagu waxooda kuma waafaqayaan sidaa darteed annagu ilaa inta xujo cad la keenayo ilaa intaasoo dhan annagu waanu saxsannahay waxaanu ku saxsannahay inaanan waxba aaminsanayn sidaa darteed Imraana si uu arrintaa uu anaga hadda noo qanciyo
raaciyo waxa uu sameeyey atheismkii iyo naturalismkiiba markaa isdhexgeliyey oo isku laaqay aniguna dabcan isuguma yeedho inaan ahay qof atheist oo mulxida inaan ahay isuguma yeedho sidoo kale cimraan waxa uu sheegay oo dabcan uu ku saxsanaa in dad mulxidiinihii inay ficilo xunxun iyo dil badan ay geysteen Stalin oo kale oo dil badan geystay mulxid buu ahaa sidoo kale Hitler inkastoo isagu Catholic ahaa oo Christian uu ahaa isna dad badan buu laayay sidoo kale Mao isaguna Confucius oo Chinese buu ahaa laakiin tusaale ahaan dadka mulxidiintii markii dilka faraha badan ay geysanayeen dilka marka Ilaahay dartii maysan u geysanin balse waxay u geysteen marka iimaan la'aan iyo marka iyo awood ay doonayaan iyo inay wax qabsadaan ay wax maamulaan darteed bay u geysteen haddana saasoo tahay anu waxaan hadda leeyahay islaamka ama kristanka ama diin kaleba ha noqotee dhammaan diimuhu marka waxay noqon karaan jidka iyo marka meesha loo maro xagjirnimada ilaa maantana waxaa jira dadyow wadankeena ku nool gaar ahaan Birmingham jooga kuwaasoo marka ilaa maanta dhibaato ka maraya in caruurtoodii ay jeclaayeen intay halkan UK ka tageen inay marka ISIS u tageen si ay ISIS uga soo ama Daesh uga soo barbardagaalamaan halkaana markii dambe lagu dilay sidoo kale markaan u imaado akhlaaqiyadka iyo waxyaabaha morality-ga markaan u imaado bal su'aal baan isweydiinanaa xagga muslimiinta marka laga eego ma waxa fiican inaynu qaadano akhlaaqiyad kuwaasoo sheegaya dumarka sinaysta in dhagax lagu dilo mise akhlaaqiyadka noocaasa inaynu bedelo oo aynu wax kala qaadano ayaa fiican sidoo kale arinta kale SNSka la xidhiidhay ee marka Cimraan Xuseen uu weydiinayay waxaan oran karaa horta mid baa jirto dadku inay wax iska shaambadeeyaan oo dadka wax ku shaambadeeyaan way jecel yihiin oo tusaale ahaan oo kale imika dadka scientistiska lagu shaambadeeyo waa erebixin saynisaanada laftoodu iyagoo aysan adeegsanin arintaasna dabcan waa arin iska dabiici oo dadku mar walba dadka ka soo horjeeda way shaambadeeyaan tusaale ahaan oo kale dadka qaar waxaa lagu shaambadeeyaa gaalo dadka qaar waxaa lagu shaambadeeyaa Gentiles oo ah dadkan Yahuud ahayn maantana dadka bilaa iimaanka ah mulxidiin baa lagu shaambadeeyaa marka saas oo kale dadka wax lagu shaambadeynaya sida wax loogu dhajinayo in marka sayniskana scientism la dhaho dabcan iyadu taasi sax ma aha sababtoo ah saynisku aragtina ma aha waxyaabo la aaminsan yahayna ma aha laakiin waa nidaam wax marka loo baaro waxna lagu ogaado waxna lagu cadeeyo halka dadowga scientismka lagu eedeynayo marka erebixinta noocaas loo adeegsanayana dadowga marka diimaha haysta ayaa mararka qaar adeegsada si marka sayniska ay ugu liidaan qofka magaca lagu dhajinayana loo muujiyo in la eedeynayo si loogu muujiyo sidoo kale Cimraan waxa uu sheegay in buugayga marka aragtiyo fara badan oo aragtiyahayga ay ku jiraan dabcan uu ku saxan yahay aragtiyaha aan buugga ku qorina waa aragtiyahayguna wax muhiimada oo weyn ay sameynayaan ma jirto sababta aan sidaa u sameeyna sababtaan marka aragtiyahayga iyo buuggayga u qoray ayuu weydiiyay sababtaan aragtiyahayga u qorayna waxa weeye waxaan ka soo horjeeday in marka wax aan muhiim ahayn oo marka aan sii weynaynba in dadka lagu kala qaybiyo ayaan ka soo horjeeday sababtoo ah dhammaan diimuhu dadka kala qaybiyaan haddii maantana ay jir lahayd hal diini dabcan dhib ma aysan lahayn laakiin maanta waynu ognahay diimo badan baa jira diin walbaaba waxay sheegataa in iyada oo kaliyahi inay saxan tahay kuwa kalena ay khaldan yihiin ayay sheegtaan arintaasna dabcan waa dhibaato waxayna keenaysaa in bulshooyinka marka iskhilaafaan balse si aan arinta aan u xalliyo iyo khilaafka aan u xalliyo anigu waxaan leeyahay dhammaan diimaha mid sax ah ma jirto ilaa mid kamid ay la imanayso cadeyn ay jiritaanka Ilaahay ku cadeynayso ilaa intay la imanayso sidoo kale ujeedada iyo hadafka nolosha laga leeyahay aanu imaado haddii marka inaga bini aadamka ay dhammaanteen aynu wada doonayno aynu u oomanahay inaynu nolosha kala haano haddii aynu doonayno dabcan inaynu hadaf doonayna kama dhigno inuu hadaf jiro arintaasna waxay ka dhigan tahay baan oran karaa tusaale ahaan kale ilmo yar oo maalinta Christmaska in wax la siiyo doonaya sidoo kale bini aadamka laftiisuna isaguna marka muhiim ma aha oo bini aadamku inuu muhiim isu arko ma aha hadda tusaale ahaan kaneecadu qiimo ma leedahay kaneecadu qiimo ma leedahay yaa xukuminaya oo sheegaya in kaneecadu qiimo leedahay iyo in kale waa inaga sidoo kale haddaan bini aadam nahay duriga miyaynu cirib tirnay waa maya qiimaha lagu sheegayaana waa kolba sidii wax loo arka qiimuhuna ma aha wax samada ka soo dhacaya ugu dambeyntiina hadallada Cimraan inaan ka jawaabo ayaan rajaynayaa hadalkaygana halkaasaan ka baxaya John, it was a pleasure. Yeah, really nice meeting you. Likewise. We should keep in touch. I'd like to give you this book. Sure. It's written by a guy named Hamza Andres Dortzis. I've got this. You got it on Kindle. We got a physical copy now. Because, thank you. Yes, yours. I'll get him to sign it. Yep. Because I'm debating him in the near future at Teesside University. It was supposed to happen last week, yes, but it didn't happen for some reason. They don't have such a good organizer as you have here. Yeah. This was brilliant. You have
Imam. She's brilliant. They don't have Imam. Excellent. But it would be nice to stay in touch. Yeah, You can take my absolutely. number as well. It would be good to stay in touch. I'd like that. Brilliant. Thank you. No problem. Hello.